بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هلكني وCNA كنا سود وهذا وروحين كسو قارقيق الصومالي ده يعالم كنتيس أكله وحلي كانوا كلك داوتانا CNA قضبض داوديال أورك بكنتون تان وحاكمي دا شاعبك كل قن مقالة عاصمة مقدشة يسوي نسود ويقوان كي كسب حي حقيقة جود إقرامة مدوبية shacabka ku dhaqan magaalada caasimada oo ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa soo bandhigay waxqabad dhanka wax soo saarka beeraha ah. Booliska dalka Kenya waxa uu ku raacoogaa mid kamid ah muwaadiniinta Talyaaniga oo lagu leeyahay dalkani Kenya. Intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada warka buugan doontaan haatan isagii oo fidsan. shacabka ku dhaqan magaalada caasimada oo ah Soomaaliya ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay hadalkii ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Faafahinta warkaasi waxa magaalada caasimada Soomaaliya naga soo diray wariye Samiir Cabdirasaaq. kadib go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay wakiilka qaramada midoobay fadhiya Soomaaliya Nicholas Haysom inuu ka sii shaqeeyo xafiiska qaramada midoobay ku leedahay gudaha dalka, taasi oo noqotay mid uu aqbalo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. inkastoo qoraal ka soo baxay xafiiskiisa xogayaha guud ee qaramada midoobay la sii raaciyay inay ka xun yihiin sida ay dowladda federaalka Soomaaliya ula dhaqantay Nicholas Haysom, balse sida ugu dhaqsiyaha badan wakiil cusub ay u soo magacaabi doonaan Soomaaliya. Haysom oo khudbad ka jeedinayay kulankii golaha ammaanka qaramada midoobay isugu yimaadeen ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya guulo badan ay ka sameysay dhanka siyaasadda, maaliyadda, inkastoo caqabado badan uu sheegay inay ka jiraan maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya dhexdeeda. And had been well received by prominent officials of the federal government and of the regional states. I have been impressed with the federal government's far-reaching reform agenda and their commitment to practical implementation through roadmaps for delivery in each relevant sector. Somalia has maintained a positive trajectory, but continuing political turbulence could throw it off course. In December, the IMF completed its first... ugaas Cabdullaahi waa wayjoog Soomaaliyeed waana sharci yaqaan. waxa uu qabaa arrintan inay tahay mid wanaagsan, isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay arrin ay ku farxi karaan ummadda Soomaaliyeed, sarana u qaadi karta maqaamka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba Soomaaliya ay ka taagan tahay caalamka. ereyga asaga ah oo farmaajo uu ku adkaystay iyo qeyri boqol iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo MBC-ga UN-ka loo fadhiya intaba hambalyaan leeyahay hambalyo UN-ka sharciga aniga international law sharciga adduunka ayaan bartay ma jirto dowladda daciif kastoo tahay waddankeeda ayadaa leh ayadaa xukunta meel alla meesha adi aad dhigta waay meesha adi aad ka qaadana waa laga qaadaya. farmaajo qayre wasiirka danjiraha baale intaba waa u hambalyeynaya sidaanu ku socda nilku miraadis ah oo qadiyadiisaba saxan bariis ay ku fadhido ama dibadha ka yimaado ama gudaha ka yimaado wax loo jixanjixaya ma jirto. si la mid ah nabadoon bedel jaamac xirsi waxa uu qabaa arrintan inay tahay mid wanaagsan, isagoona suugaan yar ku cabiraya dareenkiisa ku aadan arrintan wax uu ka aaminsan yahay. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waana mid loo baahan yahay. midda kale wariyahana qaaliga oo adaa wararka qaado qaaradaha ku fudiya balqabsa hadalkii madaxdeena qaranka khayriya farmaajada tilaabada ay qaadeen ma qaldana maanta waa mid loo qushuuxay qof waliba jeclaaday. قال لو قبالدية قرمة المذوبية قرف الله وصدية قرص جديدة قادر كاهن اللي ترى قرنكينا إلى شغله إنك استون قلالنا هيو قبيلة ذي متشي أو قوس بقولنا أيوم قرب كرطوري هذا لا قرن ترى إنه حرية قاتي واهر أدوية وخيمة يسوع أدوية وقدريسه قادر ما ينقوسي قفل بها وقال بدك قالوا قبالة ذي قرف الله وباهنا
markii laga soo tago ugaas cabdulaahi weliba nabadoon bedel waxaa jira qaar ka mid a shacabka muqdisho oo aan la dhex qaaday mikrofoonka muuqaal baahiyaha CNA iyagoona soo dhaweynaya arrintan ay dowladda federaalka Soomaaliya samaysay sax ah Soomaaliya anfacaya qarannimadeena anfacaya madax bannaanideena anfacaya sababta waxa anaga curyaamiyay dowladeena curyaamiyay waa faragelin shisheeye taageersana asagana nidaamkiisa iyo ku joogay ahayd qoladii kalena nin kale oo nidaamka dawladda iyo amarkeeda ku shaqeynaya u soo dirsato waa taageersan Samiir Cabdirasaaq Umar wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda ee Muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay ergey cusub oo Soomaaliya u qaabilsanaan doona kadib markii ay dowladda Soomaaliya hoosta ka xariiqday inay dalkeeda ka shaqeyn karin ergeygii hore ee Soomaaliya u qaabilsanaa baafinta warkani waxay noo diyaariyay wariye Igare Yaasiin xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ergey cusub u soo magacaabi doona dalka Soomaaliya isagoo aqbalay go'aankii dowladda Soomaaliya ka qaadatay wakiilkii hore ee qaramada midoobay u joogay Soomaaliya Nicholas Haysom kaasoo ayaamihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ay guud ahaan ka masaafurisay wadankeeda kadib markii ay sheegtay wasi hadalka u dhigtay inuu ku xadgudbay jiritaanka dalka Soomaaliya iyo madax bannaanida gayigaasi war saxaafadeed uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobay ayuu sheegay si degdeg ah in loogu magacaabi doono ergey cusub oo arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliyana u joogi doona sidoo kale waxa uu sheegay ergeygii dhawaan dowladda Soomaaliya ka masaafurisay wadankeeda ay ka mamnuucday inuu ka sii shaqeeyo inuu ahaa shakhsi aad iyo aad ugu xeel dheer arrimaha loo xil saaray ee uu ka qabtay wadankaas iyo wadamo kale oo hore uga soo shaqeeyay Igre Yaasiin Xaaji Nairobi shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo bandhigay waxqabad ama wax soo saar dhanka beeraha baafinta warkaasi waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariye Nadaara beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wado dadaalo kala duwan ay ku sii horumarinayaan tacbashada beerahooda dalagyada ka soo go'a beeraha gobolkaasi ayaa inta badan loo dhoofiyaa gobolada dariska la ah gobolka Shabeellaha Dhexe noocyada qudaarta ka soo go'a beerahan oo ah kuwa aad u fara badan ayaa mid ka mid ah beeralayda waxa uu ka warbixinayaa noocyada qudaarta ay beeraan wax soo saarka oo beeraha gaar ahaan maartay qudaarta gobolkan waa gobol Ilaahay maartay ku manaystay waxyaabo badan inay ka baxaan sidii dhinaca beeralayda ay ku mashquulsan yihiin tacabka beeraha siiba gaar ahaan yaanyada iyo waxyaabaha aniga aan hadda kor ka soo sheegay nasiib wanaag waxaa jira berigii hore yaanyada suuq looma haynin qaraha iyo bocorkana suuq looma haynin hadda wixii joohar maartay beeraheeda laga helo oo qudaar ah waxa loo iibgeeyaa xamar maadaama xamar uu noqday meel ay degan yihiin dad wax cunaayo aan deganeen dad beer tabcaayo ma degana marka sidaa awgeed wixii xamar laga cuni lahaa in gobolada la deris ah degmooyinka la deris ah laga keeno moogi maahane in sanadba sanadka ka dambaysa beeralaydu ay noqoto kuwa wax soo saarkooda oo kordhiya isla markaa haddana maartay waxay soo saaraanna u iibgeeya suuqyada beerista dalagyadan oo ay beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe waqtiyo kala duwan ay geliyaan waxa inta badan loo iibgeeyaa suuqa qudaarta degmada Jowhar halkaas oo ay ganacsatada nolol maalmeedkooda ka sii raadsadaan haday zaid tahay laakiin markii hore ay lacagteeda ay qurax loo kala gadanay markii hore qurax loo kala gadanay lacag fiican ay joogtay hadda qudaarta badan tahay haddana lacag la'aan ay ku soo aad aniga waxaan kaystaa markii qaarkeed qudaar oo ka kooban bagel iyo ansalaato basbaas koosto markii qaarkeedna oo soo go'o dalga cambaan beeraha ka kaystaa markii disleen ku wareejiyaa marna aniga iska goobaysta beerahayna ka keensanaa markeed oo soo qaadba kun 2,500 asagada inta beerta ay noogu iimaanayso beertay waxa ka soo go'o koosto basbaas tilaale yaanyo sidoo kale bocorka kale mooska ka soo go'o beertayga gudslayn waa siya anigana waa sii gataa 1,000 shilin waaye abada karootada 5,000 shilin maaska kabsarta raqiis waaye gobolka inay ka baxdo 2,000 shilin
xabadda barbarooniga 1,000 shilin loorkana waxaan gadanaa 200 kun ma kasti xilligan raqiis bashbashi barwaaqan taagana gobolkeena barwaaqa taalmaanta maasha Allah qudaar waa la taabacay ana nolol maalmeedkan ka raadsana qudaartan beeralaydan ka qaataa cabduqaadir cumar ibraahim cabduqaadir nadaara CNS Somali TV beledweyne booliska dalka Kenya ayaa baadgoob ugu jira haweeney Talyaaniga lagu afduubtay magaalada Mombasa ee dhanka xeebta wafaahinta warkaasi waxay noogiye wariye Bootan iyadoo ay 2 bilood ka soo wareegatay tan iyo markii la afduubtay haween u dhalatay wadanka Talyaaniga oo lagu magacaabo Silvia Romano kana shaqeynaysa hay'adaha gargaarka ee ismaamul goboleedka countigaasi Kilifi ayaa ay ciidamada ammaanku weli waxa ay wadaan baaritaanka ay ku doonayaan in haweeneydaas iyadoo bad qabta ay soo helaan ciidamada difaaca ee dalkani Kenya ee KDF iyo weliba sidoo kale kuwa booliska iyo laamaha kala gedisanaya ammaanka ayaa waxay ku howlan yihiin inay kaymaha ismaamul goboleedka Lamu iyo Kilifi iyo kaymaha ismaamul goboleedka Tana River ay ka baadgoobayaan taliyaha guud ee ciidanka booliska ee dalka Joseph Bonnet ayaa waxa uu sheegay in ciidanka ammaanku aysan weli ka quusan howlgalkaasi lagu doonayo in gabadhaasi lagu soo samata bixiyo iyadoona ay ciidamada ammaanku ay soo bandhigeen dhawaan sawirada 3 ruux oo la sheegay in lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin afduubka gabadhaasi hogaamiyaasha ka soo jeeda ismaamul goboleedka Tana River ee gobolkani xeebta oo lala xiriirinayo dad ka soo jeeda deegaankooda ay afduubkan ay ka dambeeyeen ayaa waxay ugu baaqeen shacabka deegaankaasi inay kala shaqeeyaan laamaha ammaanka sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxdii burcadda ahayd ee weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba sidoo kale xogta gabadhaasi la afduubtay maxamed cabdi bootaan CNA TV Mombasa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa eedeymo culus soo jeediyay isla markaasina eedeymo dusha ka saaray aqalka sanadka dalka Mareykanka faafahinta warkaasi waxay noogay wariye Fuad Gure madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dawladdiisu ay ku bixinayso 5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah darbiga laga dhisay xadka kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico xaq ma ahan in 54 bilyan oo lacagta dalka ah ay bixiso deeqo caalami ah kuwaas oo uu sheegay in uu wadankiisu u baahan yahay in darbi looga dhiso si ammaankiisa loo adkeeyo The 5 billion, the 5.6 billion approved by the House is such a small amount compared to the level of the problem. When you see that the Democrats want to give away 12 billion extra and we're giving away 54 billion in foreign aid. So we give money to countries, but we don't give money to our own country, which is another thing that I've been complaining about, and we're cutting that back. It's very unfair when we give money to Guatemala and to Honduras and to El Salvador, and they do nothing for us. isku soo wada duubo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay isha si gaar ah ugu hayay xuduuda kala qaybisa wadankiisa iyo Mexico intaasi daawadayaal waxaan wixii naga soo gaaray gayga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale oo xilligan kale ka daawanaysan TV-ga caalamiga CN warkana waxay la socodsiinayaan anigoo ah Yaasir Cabdullaahi Kaahin tan iyo inta aan ku kulmi doono warkan lamid ah waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo